marka waxaan dhihi karaa si fiican ayuu u socdaa golaha xildhibaanada waxaa jiray marka xeer nadaameedka 104 golaha xildhibaanada wuxuu sheegayaa xildhibaan walba markuu golaha soo galaya goobta uu soo galaya inuu nidaam anshax wanaagsan uu ku soo galo wax alaalay wixii dhaliil uu tabanayo ama wax alaalay wixii danaha shacabka inuu baarlamaanka gudihiisa kaga hadlo runtii afyeenka shirka hogaamin aad baan ugu mahad celinayaa dulqaad aad u fara badan bay sameysay waxa jira marka xildhibaano kooban oo dhowr ah oo runtii golaha gudahooda booq ka dhaliyay markii ugu dambeysana shirka ayaga iskood uga baxay taa marka waxaan dhihi karaa xildhibaanadaasi xaq waxay u lahaayeen inay ku dhaxalgamaan golaha gudihiisa oo wixii dhaliil oo arkaan oo fact oo dhab ah inay halkaas soo dhigan bay ahayd taa laakiin jaaniskaas runtii kama ayna faa'iideysanin marka xildhibaanada markuu nidaamka nooca dhaco saan hore ugu sheegay qodobka 104 xeer nadaameedka farqadiisa koobaad labaad saddexaad runtii nidaam marka loo maraa ayaa jiro marka golaha xildhibaanada ay runtii isku qiimeeyaan ama isku eegayaan taa marka hadda waxaan dhihi karaa mustaqbalka hawshaas waxay noqonaysaa hawl hogaaminta baarlamaanka oo afyeenka ugu horeeyo iyo gudida joogtada dhinaca sharciyada in hawshaas inay eegaan xildhibaan walba marka wuxuu asaga mudan yahay sharciyada ay u goynayso bay sida sharciyada noqonaysaa taa waxaan u leeyahay waxa weeyaan 8 milyan halkan deegaanka Soomaalida ku nool waxa matala golaha xildhibaanada xildhibaan walbana wuxuu wataa cod shacab marka mas'uuliyad waxa ka saaran xildhibaan kasta inuu sharciga wadanka u yeelo iyo sharciga deegaanka u yeelo iyo xeer nadaameedka golaha anshax ee baarlamaanka uu sameeyo isaga saxeexay ee koow ka ahaa inuu ilaaliyo xildhibaan walba marka way faran tahay haddii marka uu ilaalin waayo